waxaa magaalada Toronto ee dalkan Canada si rasmi ah uga furmay toddobaadka ciyaaraha Soomaalida ee Toronto oo sanad walba la qabto bisha July. Sanadkan tartanka toddobaadka ciyaaraha kubadda cagta ee Toronto waxaa ka qayb galaya 18 koox oo ka kala socda magaalooyin ku yaala dalalka Yurub, Mareykanka iyo Canada. waxaa furitaanka ka qayb galay madax ka socotay dowladda Soomaaliya iyo aqalka sare iyo gudoomiyaha degmada Cabdilcasiis. waxaa sidoo kale goobjoog ahaa ciyaartooy hore ugu soo ciyaaray xulkii qaranka ee Soomaaliya iyo naadiyadii heerka koobaad ee Soomaaliya. sidoo kale waxaa ka qayb galay dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo taageerayaal kala duwan. qabanqaabiyaashu waxay sheegeen in ujeedku yahay sidii loo dhiirigelin lahaa dhalinyarada. waxaana arrimahan ka wareystay Cali Muudey oo ka mid ah madaxda ururka Today ee qabanqaabiya tartankan. bismillaahi raxmaani raxiim. Xuseen DOA aad ma santahay munaasabaddan iyo fursaddan aad siisay. maanta waa bisha 4 July 2025 waxaan ku suganahay magaalada Toronto galbeedkeeda Centennial Park oo ciyaaraha ku qaban jirnay last 35 sano. sanadkan waxay uga gedisan tahay inkastoo geeri xanuun badan ay nagu dhacday laakiin halyeeyayni odagayni liidarkayni Axmed Cabdikariim Walaayo ayaa ilaahay naga jeclaystay ayaan sanadkan ugu magac darnay koobka. taas waa xanuun dhinaca kalena waxa waaye farxad ay noo tahay in 35 guuradii ay tahay inkastoo asiga nala joogin laakiin tusaalooyinkiisii ayaan ku soconaa. sanadkan waxaa ka soo qayb galay 18 kooxood ayaa nasiib u helay. 5 koox waxay ka timid Yurub, 4 waa Ingiriiska, halna waa Sweden, 2 America ka yimideen oo Ohio, Seattle, Washington, wadanka aan ku noolnahay Canada, Edmonton, magaalada madaxda Ottawa, Hamilton iyo 8 koox oo ka tirsan magaalada Toronto. 18ka saas ayay ku bilowday. waxaa garab socda ciyaarihii Old Boys aan weligeena dhigi jirnay oo 4 koox ah. 4taas kooxna waxaa loogu magac daray walaalkeen Axmed Cabaas halyeeyigii ilaahay caafimaad ha siiyo oo walaalkeen ah dadka ciyaaray wax ka bilaabay soo ciyaari jiray waaye oo ku nool magaalada Minneapolis ku nool. waxaan leenahay walaalkeen caafimaad degdeg Allah siiyo. Old Boys kaasna waa ku qaban. waxaa kaloo dhinac socdo dhalinyarada sanadkan wax badan aan ka bedelnay oo nidaamka iyo inay youth badan ay ku soo daraan ciyaaraha. waana aragteen youth badan ay yimid sanadkan oo ciyaaraha ka soo qayb galay taasoo aan fursad u siinayno in ay maaragtay fursad u helaan North America kooxaha ka tirsan MLS-ka. marka waxaan leenahay maaragtay waa farxad weyn. ciyaaro kaliya ma ahan dadka Soomaalida waxaan rabnaa inaan u sheegno waa dhaxalka bulshada waxyaabaha laga faa'iidayo waxa magaalada aan ku noolnahay qaar annaga naga mid ah oo aan is arkin muddo waxa dhahay war Xuseen Caaisho Isniino Shamso war intee ka baxday intee iyo dadka imaanaya naftirkooda oo meel kasta ka yimid Afrika laga yimid Asia laga yimid Australia laga yimid Yurub laga yimid America laga yimid mid kale aan kugu darayo Xuseen waxa aniga berisamaadkii markaan gobolada ka nimaadlo waxaana lagu dirji jiray xaafadaha inta tii oo indirect ah markay yimaadaan ciyaartooyda markay yimaadaan hoteelle ijaartaan waa la isdhaxgalaa waa la isbartaa munaasabooyin aan u qabanaa cashooyin aan u qabanaa si ay isu bartaan isu arkaan. ujeedada muhiimka waa intaas ciyaar kaliya ma wataa. Cali Muudey waxay ka warantaa bal markii ugu horeysay ciyaarahan maanta furmay isku aadkooda iyo sida kooxaha isku aadi lahaayeen ururka Today waxay ku qabteen wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London. ka waran dadaalkaas iyo dadka siday u arkaan arrinkaas. ما شاء الله سؤال فعلا. أرنتاس وحوين يكبدش وحي كتصي سام عرقتي Today ورك Today هيرك أو جاري يهرمرك أو جاري كتصي سام أرنتاس أنكفى إن ضد بدن أيا كسوق يبكر ضد بدن أو حين أوفر جريين إن أي قبطان مجالوين كله مرة بينام مقعيد مجالوين كان شيء لك وحكم إذا ودنك هويو مرك وحنا هنبل إله نجالسين السنة كدمبه وكنت شدوا الناس سيدي عرمي وحي نسميه دو إلهي را مركا وحوين سولوين تاع الإنجليز كلا قيب قال حسين هذا وين شفتي واحد هيلي كلمة Cali Muudey marka ciyaarahan maanta bilowday ee kubadda cagta ah ee isku aadkoodana Ingiriiska London lagu sameeyay laga soo tago ciyaaro waxaad qabateen basketball ah oo aad soo gabagabayseen ka hor furitaanka maanta ciyaarahan. bal haddii dadka ku daawanaya aad u sharaxdo ciyaarahaas basketballka iyo ujeedka aad ka leedahay. ما شاء الله ciyaarahaas sanadka hore aan bilownay sanadkan waxaa ka soo qayb gashay 6 kooxood ka soo qayb gashay
maasha Allah oo dhalinyaro ah ujeedada laga leeyahay waxa ay ciyaalka markuu iskuulka xirmo waxay u baahan yihiin meel ay waqtigooda ku dhumayaan saas darteed ayaan u sameynay energy ay leeyihiin arrimahaasna waa sii wadi doonaa insha Allah sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan ku soo darno xataa winterka insha Allah inaan ku soo darno kooxihii aan badino marka wax weyn laga faa'iiday dhalinyaradii ay yimideen ay naftirkooda waa isbarteen marka wax la heli kara ma waxa kaloo dhinac socdo Xuseyno 26kii ayaan qabanay calansaarkii waxaan qabanay 1 Luulyo ayaan qabanay maaragtay sanadkan we break record waa dhigi karna ilaa 7,800 oo qofood ayaa ka soo qayb sanadkan waxaan la heli karin waay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed wanaaga iyo kalgacalka ay muujiyeen inay sii wadaan sida hadda madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu ka yiri khudbada markii 1 Luulyo wuxuu yiri waxaan u mahad celinayaa qurba joogta meel kasta ay joogaan sanadkan sida ay uga soo qayb galeen ay u sameeyeen munaasabooyinka waana dareemi kartaa adduunka oo dhan shanta qaaradood meel aan laga xusin malaha 1 Luulyo 26 taas waxay ku tusaysaa Soomaalinimada inay soo noqoto wata adoo isoo koobaya dhalinyaradan ciyaaraha maanta u furmeen maxaad u jeedin lahayd dhalinyarada waxaan u jeedi lahaa maaragtay reasonka oo timideen ma aan inay ciyaartaan kaliya reasonka oo timideen waxa waaye walaalihiin inay dhaqashaan future-kiina maaragtay birta qofkii Ilaahay nasiib ku yeelo ayaa heli doono ujeedada annaga leenahay waxa waaye inaad isku duubnaataan walaalo noqotaan isjeclaataan horumarka ka shaqaysaan wadankii hooyana waa idin baahan yahay last 3 years waxaan geenaynay Soomaaliya ciyaartooy waxaan jecelnahay dadka hadda yimidna ciyaartooy ayagana laga xulo oo Soomaaliya la geeyo doona dawladda tartanka oo la qabanayo sanadkii 35aad ayaa ah mid ay isdhexgal iyo isbarasho ku muujinayaan dhalinyarada ka yimid magaalooyinka kala duwan ee Yurub, Mareykanka iyo Kanada sidoo kalena waxa isku arkaa ciyaartooydii hore ee Soomaaliya tartanka ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo 13 bishan July halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa arrimaha la xiriira ciyaarahan fadlan si dhow noogu xirnow mahadsanidin